Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo noqod wanaagsan oo xiise leh. Waxaan ku jirnay chapter 4 oo aan oga hadlaynay present progressive-ka. Last time waxaan ka hadalnay the non-action verbs used in the present progressive and the simple present versus present progressive. Waxaan isbarbar dhignay simple present-gii iyo present progressive-kii. Hadda marka waxaa kaloo isgarab dhignay ama non-action verbs-ki ficilada non-action-ka ah ama ficil waxaa jira action ah, ficil ah. verb ficil marka ayada oo ficilkiisa loo jeedo oo tangible uu yahay mid non action la yiraahdo oo aan ficil sameynaynin so kuwa ayada qaabka loogu isticmaalo present progressive maanta waxaan galaynaa ereyada kala ah see, look at, watch, hear and listen to kadib think about and think that qaabka loo kala adeegsadaan fiirinaynaa waa haddii ay noo suurto gasho inaan ka gaarno horta kanaan galaynaa haddaan hel fiican dhammayn ka kala galaynaa fadlan haddana waa subscribe saar siina share garay cashirka okay so waxaan galaynaa dhammaan let's take our pen so see, look at, watch, hear and listen to see waa aragti, look at waa daymosho, watch waa daawasho, hear waa maqal, listen to waa inaad shay aad meel kale ka dhegaysato okay tusaale she is looking at her watch she is looking at her watch so ereyga look ayaa waxaan ku darayaa ing looking and look at are different so she is looking at her watch watch waa saacadeeda ay eegaysaa okay she sees the house she sees the house so see is an action verb so ereyga see waa an action okay she is looking at her watch she wants class to end she is looking at her watch waxay eegaysaa saacadeeda she wants class to end waxay danaynaysaa ama ay doonaysaa fasalka ama xiisada inay dhammaato okay so look at is an action verb look at or she is looking at okay she is watching the children she is watching the children she ayada is watching waxay daawanaysaa the children ciyaalka so watch is an action verb laakiin ing waan ku darna weli I hear the car horn. I hear the car horn. Aniga hear waxaan maqlayaa the car horn, hornka baabuurka. So here is an action verb. He is listening to his favorite music. He is listening to his favorite music. He asaga is listening wuxuu dhageysanayaa to his favorite music. Heestiisii uu jeclaa. Here is an non-action verb and listen to is an action verb. Listen to is an action verb okay so haddii marka aad fiiriso tusaalaan dib ugu noqdo see waa non action waa waxaad arkayso look see waad arkaysaa laakiin ma taaban kartid wixii waad arkaysaa laakiin look at waa action verb ficilay samaynaysaa saacaddii gacantaad ku haysaa you are looking at waad daymoonaysaa okay watch is action verb watch you are watching something waa action verb wixii waad daawanaysaa waana taaban kartaa waa action verb hear is an action verb laakiin listen to waa hear is an action verb laakiin listen to waa action verb waa verb ficil samaynayo waa you are listening to your favorite music is an action verb so haddii marka shaygaas aad ku dari karto ing haddii shaygaas aad ku dari karto ing waa action verb okay tusaale let's practice and see my brother dash TV. My brother dash TV. My brother is watching TV. The baby dash. They dash their baby. Looking at see watch. They are looking at their baby. Listen or hear or listen to. The train tracks are close to our house. The train tracks are close to our house. We dash the train every night. We hear the trains every night. Waan maqalnaa laakiin uma jeedno taaban karno. Grandpa dashed music. Here listens. Grandpa is listening to music. Waa action verb, an ongoing action verb. Listening to music. Okay, think about and think that. Before we end our chapter, we are going to talk about think about and think that.
I think about my daughter every day. Aniga waxaan ka fikiraa gabadhayda maalin walba. I think about my daughter every day. So think plus about plus a noun. So ereyga think waxaan ku daraynaa about, waxaan ku daraynaa noun. So I think about her every day. Aniga think waxaan ka fikiraa about her ayada maalin kasta. Okay. I am thinking about her right now. So think marka think about I think that. Think about waxaa loo adeegsadaa simple present tense oo everyday ah. Laakiin thinking about ama think about waxaa loo adeegsadaa action right now oo ficil hadda dhacay oo progressive ah. Okay, I think that this game is fun. I think that this game is fun. Okay, you think that the test is hard. You think that the test is hard. Okay, you think that the bug is cute. You think that the bug is cute. So I am thinking that the game is fun. Lama dhihi karo. I think that this game is fun. This game at that moment. You think that the test is hard. You think that wuxuu u malaynayaa that the test is hard. Inay testiga ama imtixaanka inuu adag yahay. So I am thinking that the game is hard. Ma dhihi kartid. So think that kuma dari kartid ing. Okay? But waxaad leedahay I think that the game is fun. So I am thinking no. You say I think that the game is fun. I am thinking that ma dhihi kartid. You is thinking that the test ma dhihi kartid. You think that the bug is cute ma dhihi kartid. So I think that he is nice. Ani waxay ila tahay asaga inuu fiican yahay. I think he is nice. I think he is nice. So I think that and I think have the same meaning. I think that he is nice or I think he is nice. So ereyga think kaliya dad qaato oo that ka bixiso still wuxuu la micno noqonayaa adoo think kaliya qaatay ama think that qaatay. Okay, let's practice. Think that and think about. I dash math is difficult. I think that math is difficult. I think that math is difficult. I think that waxaan u malaynayaa that math xisaabta is difficult inay tahay mid adag ama mid difficult ah. Think that and think about. Inez dash her homework a lot. Inez thinks about her homework a lot. Thinks that. She thinks. So verb can. Inezka, she thinks. Yani third person ka inuu isku darsamo verbka. Think that and think about. So Max dash reading is fun. Max thinks that reading is fun. He thinks, she thinks that it thinks. Tani kula tudba xiisa leh. Waa markaan bilaabi doona chapter keeni xigay ee ku saabsanaa chapter 5kii. Chapter 5 wuxuu ku saabsan yahay hadduu alla awoodda la raalli ka noqdo wuxuu ku saabsanaan doonaa talking about the present. Annagoo ka hadlayna xilliga ayada ee presentiga ah waxyaabaha la adeegsado. Tusaale, we talk about time, preposition of time, weather, aad u xiiso badnaan doonaa. Tani kula tudba xiisa leh waxaan kaga tagay sida iyo nabadina.